daawade waxaan rabnaa qisadaani waxay ka mid tahay qisooyinka ilaa iyo haddadaani open file-ka ah yacni shalayna qiso open file ah ayaan inoo soo bandhigay haddaa xasuusataan so waxaa laydinka rabaa dembi baarayaal qisadaani inaan xalino ra'yiga shalay aad dhiibateena waa ra'yi macquul ah oo qof weyni uu ku qanci karo let's go dembi baarayaasheeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا قدنا كسولادة ذي قاليجا ونولاشين هذني شان كذي كداوني سام شان كنادي كبرتين هذن أونلاين هذا عندك بسوطة داو سودو قام فرن سبسكرايب نديري كذي فيديو قلنا لايك فرن بدأ نسكسر فري ما هنو سكسر لايك وما سنتين ما أنت كاميرا كلا يا إيه تعالى أو كاميرا ذي كلا دار هذا ما أنت ملبا كاميرا استعمالوسا حالا بكاميرا يا استعمال يا channel ككله هذن أونلاين فاميلي أيا وحنو دوبا يا روتين night routine weliba waaye yacni galabta wixii ka dambeeyo ayaan duubaaya so caawa ayaan soo gelin doona videogaas insha allah stay tuned channelka inta ayaad uga jeedaan shaashada soo saara qaybta commentigana pin ayaa ku qaban doona so subscribe saar saa u aragtaan hodan habeenkii maxay qabataa hanoo bilaabato maanta waxaan joognaa USA California ayaa joognaa qisadan ruhaantii waxay dhacday 2018 bishii saddexaad bishii tobanaad 13 qisadan waxay ku socotaa gabadh yar magaceedu waxaa la dhahaa Kylie Goyce magaceedaas ah Kylie Goyce waxay dhalatay 2002 markay qisadani ku dhacaysay kaliya waxay jirtay 16 jir ayay ahayd 16 jir ayay ahayd because 2008 ayay dhacday qisadani si la yaab leh ayay u dhacday yacni anaga hadda waqti xaadirka waxaan dhahnaa oo waqti waxaan ku jirnaa civilization waqti horumar aan ku jirnaa teknolojiyadu horumartay DNA gu horumaray yacni samahan oo civilization ayaa ku faana laakiin qadiyadani ilaa iyo haddan daawade waxaa loo weysan yahay xal gabadha yar marka aan idin barajaale gabadhaan waxaa leeyahay idin soo barayba Kylie Goyce waxay dhalatay 2002 waxayna ku dhalatay isla gobolkaasi California la dhahayo qadiyadani waxaa lagu eedeynayaa laba part ayaa lagu eedeynaya qadiyada gabadhaan yari inay qaarkoodna ka dambeeyeen qaarkoodna ay iska indhatireen si fudud partiga koobaad waxa weeyaan eedada gabadha yar yacni eedada aabaheed naagta uu qabo oo walaaladeedna dhashay partiga labaadna daawada waxa weeyaan booliska okay how ayaa marka booliska loogu eedeynaya waay kamarada inoo dimina in inagu filan waa nooga duubay okay gabadhaan yari waxaa iska dhalay hooyo aaba magaciisa la yiraahdo Zack hooyadeedna waxaa la yiraahdaa magaceeda Lancy Zack iyo Lancy oo de gabadha yar qisadu ay ku socoto dabcan hooyadeed iyo aabaheed waxay isku guursadeen jacayl ayagoo yarna ayay isguursadeen kadib waxaa dhacday markaa inay kala tagaan waxayna kala tageen gabadhan yar oo Kylie oo qisadu ku socoto ayada oo kaliya jirto 4 sano ayay hooyadeed iyo aabaheed kala tageen kadib waxaa dhacday inay hooyadeedna nin kala guursato aabaheedna dabcan uu naag kala guursado aabaheed naagta uu guursaday magaceed waxaa la yiraahdaa Milicia aabaheed marka gabadhaan yari oo qisada ku socoto naagtan kala guursaday ee Milicia la leeyahay waxay aabaheed u dhashay 2 caruur ayay u dhashay waana eedadeed gabadha yar Kylie marka aabaheed weekendiyada camal ayay u tagi jirtay raalada aabaheed weekendiyada camal ayay u tagi jirtay ahayd iyo mararka ciidaha iyo marmar dhif iyo naadir ayay u tagi jirtay ahayd laakiin badanaa gabadha yar waxay la deganeed oo haysatay hooyadeed kadib waxaa dhacday gabadhan yar hooyadeed in ay kala ninkeedii ay hooyadeed ninkeedii wuxuu ku yiri kaalay waan guureynaa oo waxaan ka guureynaa California waxaan u guureynaa Nevada meesha la dhahayo ayaan u guureynaa ayuu ku yiri soo bax dabcan maxaa la yiri naagi waa ninkeedina waa naagtii wala dhihino gabadha yar marka gabadha qisadan ku socoto Kylie hooyadeed dabcan odageedii baa ku yiri waa guureynaa soo bax let's go
gabadheega hooyadan la leeyahay soo bax aan guurna oo gabadheera qisadan ku socota baa dhashay dabcan gabar yaray dhasho dee markaas ahaan teenager ah dabcan gabadheera qisadan ku socotay Kylie ayaa hooyadeeda waxay ku tiri hooyo waxaan u guureynaa Nevada marka de adeerkana aan guureynaa uu yidhahay ana ma ka heli kari soo bax hooyo waxaan u baxeynaa Nevada halkaas ku noolaanayna طبعا gabadheer way diiday xidraani inta ku dhashay inta ku soo barbaaray intaan indhaha ku furtay intaan yani meeshaan la qabsaday mana ku raacay hooyo ordo iska bax waa fasaxan tahay markaas ku tiri adi inteen kaaga taga waxay tiri ani hooyaday iyo aabahay iyo eedaday ayaan hooyo la joogaya oo aabahay ima diiday hadaan dhaho aaba aan kula noolaado iska bax aniguna waxaan la noolaanayaa eedaday iyo aabahayga okay طبعا sidii ay hooyadii ku baxday waxay u guurtay gobolka Nevada mise magaalada Nevada oo ay noqotay kaalay soo saxa ilmaada real reer America hooyadii halkaas ay u guurtay Nevada gabadhii yaray baa inuu soo hirtay gabadhan yari طبعا iskuulka iyadoo dhiganaysa ayaa waxay ka shaqeyn jirtay ahayd part time kaas ay ka shaqeynayso waxa shaqadaasi geysay Milicia oo eedadeed oo aabaheed u qabo طبعا gabadha yari xaaladeeda misebo situationkeeda daawad hadaan ku soo koobo sida la sheegay waa gabadh yar oo funny gabadh yar oo cool funny cool qaylo badneen bulshaawi oo dadka ku dhex jirto oo qof waliba yani meesha joogtaba dadka ka qoslinaysa oo waliba magaaladaasi California especially area ay ka degan yihiin gabadhan yar Kylie oo qosada ku socoto waxay ka ahayd caan oo yani dadkaasi aad ay u yaqaanaan gabadha yar waxayna ku yaqaanaan wax weeyaan gabadh yar oo funny cool qurux badan degan dadka ka qoslinaysa oo qalbi wanaagsan okay طبعا 2018 baa waxay Kylie ay usoo hooyadeedna ka guurtay California ay aabaheed iyo eedadeed Milicia ay usoo guurayso waa 2018 waliba special bisha ay aabaheed usoo wareegaysa Kylie waxay ahayd bishii 7 2018 طبعا hooyadeed maadaama ay guurtay aabaheed iyo eedadeed la noolaanaysa طبعا eedadii normal markii bilawgii bilii yar ay ugu horeysay lagu la noolaa eedadii ayaa shaqo geysay gabadheer part time geysay muddada iskuulka ku maqantay inay muddo partiga kale inay say u shaqaysato halkaas ay gabadheer ka shaqeynaysay dadka ay bulshada ay isla shaqeynayaan طبعا gabadha yari way jeclaayeen waxay ku leeyihiin gabadh yar oo cool hawlkar oo hawsheeda sidii la rabay uga soo baxaysa ayay ahayd طبعا daawada waxa dhacday marka gabadhan yari iskuulkeeda darajada oo طبعا dhibcaha iskuulka oo subjectiyasha aad ay perfect ugu ahayd laakiin si lama filaan ayaa waxa dhacday gabadhan yar in ay dhibcaheedii oo iskuulka ay hal mar hoos u dhacaan sabab la'aan yani school subjectiyasha ay dhiganayso inay low keento heer ay subjectiga ku fail garayso ayay dhacday ayay gaartay waxa kale oo dhacday gabadhan yari marka ay asxaabteeda la joogto sida hadda aan normal aan hadda idinka idin hor fadhiya Soomaa daawade okay ka soo qad ina i hor fadhidaan oo kale saa hadda idin kugu sheekana amal saanay dhahaysa yani sida oo طبعا police ku explain gareynaa saanay dhahaysa hal markaas ay jareynayso xilada oo walidili raba indhahay taagtaagsan geesay firfirin saas yani way jareynaysaa ay dhan gabadha waxa u muddo in lagu soo dagay camal saas ay leedahay way jareynaysaa markaas telefoonka tuuraysa iga fogay telefoonka walidili raba gadaal ay fiirinaysa halkan la jooga halkan طبعا asxaabteedu way la yaabanaayeen laakiin sida marka طبعا asxaabteedu ay police u wareysanayo waxay saas u explain gareynayaan markii lagu yiri okay marka saad u aragteen gabadheen xaaladeeda maxad mudiirka iskuulka ugu sheegi wada ama gabadheen waalidkeeda ugu sheegay waa saaxiibtiina waa Soomahan طبعا waxay yiraahdeen anagu bilawgi waxaan moodaynay saaxiibteen inay naga xaraabaysanayso anaga maba moodaynin ba inay waxaanay sameynayso ay ka tahay wax serious way faantaa maleena طبعا sida ay ahayd ayaa hadana waxay bilaawday inay gurigoodii hadana isla sidaas ay ku bilaawdo tusaale kale oo aabaheed sheegay ayadoo TV-ga iska fiirsanayso hal mar leeba qaylinayso salootada kor istaagayso markaas saan yani gacmaha sidaan taa waa la wada sheegay ee dheesaan yani qof ma aragtay markuu stress ku jiro oo kale saan u dhahaa qofku gacmaha
saan ayay leedahay way jaraynaysaa markaasay dhididaysaa ayada dhan aabaheed markaa dabcan wuxuu yidhi aniga xaaladaasi 2 jeer ayaan ku arkay markii ugu dambeysay ee gabadhani qadartani ku dhici doonto maahane ka hor 2 jeer ayay sas naqatay ana waxaan isiri buu yidhi amay amay ka toocsanaysaa ama se kugu dheeldheelaysaa misaba amay xaalad yaro wax temporary leen mooday maahane waxaan isbitaal u baahan iyo takhasus in gabadha baaritaan u baahan maba aanan moodaynin طبعا ان 12 bishii 10aad 2018 يعني qisadan waxay dhacaysaa gabadhan yar ee qisadu ku dhacaysaa 13 October waxaan ka hadlaynaa 12 October hal maalin ka hor inta gabadhan yari la weyn doono maalinkaasi ayaa waxaa dhacday Kylie markay shaqadeeda part time ka waliba maalinkaasi school ma aysan tagin aan lahay ma ogi sababta u tag weeday lama soo bandhigin laakiin sida la sheegay waxaa tiri eedada dabcan dhehayso maalinkaasi way iska joogtay bay tiri kadib way shaqo tagtay part time kii shaqadeedii gashay markay shaqadii ka soo baxday kadib ayaa waxay iigu timid gurigeeda waxay ii sheegtay in ay rabto inay saaxiibkeed u raacdo stadiumka meesha kubadda lagu ciyaaro markaas aan ku yiri bay tiri maxaad ka doonaysaa stadiumka oo ka jiro markaas ay ugu tiri boyfriend kana sawirkiisa u jeedid Donald ayaa la yiraahdaa bay tiri ayaa la yiri magaciisa saaxiibkeedan Donald ayaa la yiraahdaa waxay ku tiri marka eedo waxaan u raacayaa Donald kulbad match oo soo daawanayo ayaa rabaa inaan isku raacno ma raaci kara طبعا hooyadii waxay ku tiri okay waa raaci kartaa laakiin before 9 pm soo laabo yani 9 habeenimo ka hor misaba 3 saac habeen ka hor soo laabo طبعا okay bay igu tiri bay tiri sidii ayay gabadhii yareydii ku baxday ee ku raacday boyfriendkeeda laakiin waxay sheegtay eedadeed waxay sheegaysaa gadaal ay ka ogaan doontaa gabadhan yari umaba aysan soconin kubad oo match ay soo daawanayaan uma aysan soconin ee waxay u raacaysay boyfriendkeeda meel night club taqaani okay night club ayay u raacday bay tiri halkaas night clubkii la joogay la soo baashaalay halkay 8 pm inay aan ku yiri 9 pm soo laabo kama dambeys ayaan ku yiri bay tiri oo eedada la dardaarmayso maadaama mas'uulka tahay hooyadii labaad ee tahay waxaan ku yiri bay tiri marka iga ka baxayso guriga kama dambeys 9 pm waa inaad irida ka soo gashaa ha soo daahin 9 pm exactly markay ahayd ayaa waxa soo wacayso gabadha ay qisad ku socoto Kylie waxay soo wacday eedadeed oo aaba qabay oo sawirkeeda u jeeda waxay ku tiri ima waan cabsanaya please ima because nolosheeda waxay ku jirtaa khatar waxaan dareemayaa in la idili rabo oo la idaba socdo markaas aan ku yiri bay tiri halkee joogta waxay ku tiri addresska ayaan ku soo dirayaa right now laakiin please soo dhaqso inta la idilin ka hor markaas aan ku yiri bay tiri away boyfriendkaagii Donald oo aad raacday markaas igu tiri bay tiri hadda ma ku jawaabi kari because marabi ina waqtiga waste gareyno please isoo gaar inta aanan dhimanin ka hor waliba waxaad iigu timaadaa bay tiri waxay ii tilmaamtay meel park yani jirdiin camal طبعا eedadii waxay tiri isla markiiba gaariga ayaan soo qaatay waxaan soo aaday dhinacaas iyo addresskii la ii soo diray parkiga misaba jirdiinka ee Kylie oo gabadha qisadan ku socotay ee dhahayso iigu imaw eedadeeda wuxuu ka soo horjeedaa isla night clubkaas ay u raacday boyfriendkeeda طبعا eedadii waxay tiri marka aan jirdiinka aan hor istaagay oo adi jirdiinkii hadda leema aan istaagay ayaa waxa arkay bay tiri ayada oo soo ordaysa kaligeeda ahayd ay tiri boyfriendkeeda lama socon qof kalena lama soconin mana daba socon adu kaligeeda ay soo orday gaarigii ayay soo kortay bay tiri dhaqaaq iyo gaarigan speed ku dhaqaajiyay bay tiri waan soo baxnay waxa dhacday bay tiri eedadu marka sida ay ayada qeexayso inta aan jidka ku soo jirnay gabadha yari waxay ahayd stressful qof saanay gacmaha leedahay markaas ay geesaha fiirinaysaa waxay leedahay bay tiri ama gaari la idaba wataa yani gaari kalena daba socda ama dabada gaarina laga gariya yani gaarigan ama gaari kale dabada kaga yimaada jugna siiya ama geeskan igaga yimaada sug bay tiraahdaa bay marka traffic light ko kale istaagno waxay sameynaysaa bay tiri gaariga waxaa wada eedada gaariga mugta gaariga geeskeeda fadhida oo geeska kale fadhida mugta steering agtiisa
gadaal ay fadhiisanaysay bay tiri kursiga oo gadaal ayay tagaysay markaas dandijo isug George geeskan istaaji waxaan ka baqayaa aniga marka la arko maadaama aniga la rabo in la dilo gaarigu inuu dhinacaan geeskayga gadaal ku yimaado adiga aad badbaadi hadaan dhimanayo isla dhiman George intay ku qaylida bay tiri ay hadana kursiga hore soo fadhiisanaysay almuhim anagoo sida stresski ku jirna ayaa waxaan imaanay bay tiri gurigeeni markaa imaanay dabcan orod ayay musqusha ku gashay bay tiri oo waxay tiri wajiga ayaan iska dhaqaaya intii ayaana ka faa'iideystay aabaheed ayaan farta ka saaray gabadheer oo waxaan ku yiri in adeer oo gabadhaadii sidaan ayuu xaalkeedii yahay ee la soco oo waxay leedahay waa la idilayaa waxay leedahay saan A to Z ayay u sheegtay dabcan aabihii wuxuu sugay bay tiri gabadhii inta ay ka soo baxayso musqusha markay soo baxday kadib ku yiri aaba kaale aan kula hadlay laakiin ma wala la hadli karo waa gabadh dib gacmihii jaraynayso oo indhaha taagayso oo intay meel dhulka fadhiisatay bay tiri iskaduudaysa ayada dhan ay saas u jaraynaysa bismillah ana ba jarays ugu dhici gaari iga tag ma agta gareena adi jarays bismillahir rahmanir rahim almuhim waxay tiri gabadh yaray dhulkay fadhiisanaysaa way jaraynaysaa ayada dhan geesaha fiirinaysaa telefonkayga damiya telefonkeedii ayaan daminay bay tiri waxaa dhacday bay tiri inay dhahdo telefoonkan naga fageeya oo meel la geeya laakiin aniga ii soo dhaweynina dabcan okay baan ku yiri bay tiri aabaheed ayaa xabadka geliyay gabadheeda wuxuu isku dayay in uu dejiyo oo ku yiraahdo de baba ana jooga ana inta dhan cid wax ka qaadaysa male adi iyo de erayadii qof bani aadan lagu dejin lahaa dabcan waxay kale u sheegtay aabaheed waxay ku tiri